كسر بوتو جماعة سبسكرايب لايك اند شير كومنتين واي مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشيدا qiimaha leh waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtiin ciid wanaagsan ciid mubaarak عيد مبارك عيد ونكسن عيدا waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada channelkayga Buto Channel waxaan idin leeyahay si xishmad leh kusoo dhawaada hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar gambaleel ka furo haddii asxaabtiin hore aad ka mid tahayna video like noo saar wax kale ka marabno okay maanta waxaan idin wadaa waxay tahay si mawduuca aad ku soo aragteen maxaa farqi u dhaxeeya Ciidul Adha iyo Ciidul Fitri waa labada ciid oo muslimiinta ay leeyihiin waa labada ciid ugu weyn ee muslimiinta ay leeyihiin muslimiinta horta waxay leeyihiin ciidani كبيرتان لبا عيد او وين ليهين مid soo sadeexaysa way jirtaa midaas maxay tahay waa ciid jimco maalin jimcaha waa ogtiin in muslimiintu ay u tahay ciid tahay maalin ciid okay jimcaha markii laga soo tago laakiin muslimiintu waxay leeyihiin laba ciidood oo weyn leeyihiin labadaas ciid maxaa laga lahaa magacooda Ciidul Adha iyo Ciidul Fitri okay maxaa farqi u dhaxay Ciidul Adha iyo Ciidul Fitri waa kala ognahay Ciidul Adha waxa lahaa ciidan Carafo ayaa lahaa Ciidul Fitri maxaa lahaa ciid oo aan u naqaan soonfur ayaa lahaa waa ognahay dhamaantiin waan qara laakiin farqi u dhaxay ayaa rabnaa maanta inaan kala faa'iideysano maadaama ay bari ciid ay tahay maadaama dad muslimiin ah aanan ciidaas ciidan farqi ayaa u dhaxeeyo waana dareemi doontaa bis video dhameeso farqi u dhaxeeyo muxuu yahay waxay tahay farqi u dhaxeeyo ciidan horta ciidan waxa la magacayo Ciidul Adha waxa la gowracitaan ciidan waxa loo magacayo ciidi gowracitaanka aniga waxa la Ciidul Adha ama Ciid Arafo okay saa u taqaaniin Ciidul Adha ciidan waxay leedahay adiga afar takbiir ay leedahay takbiirteeda waxa la bilaabaa bari ciid waa markii la maalinta Carafo sida maanta camal waxaan filaa dadkiina badi ina takbiir aan maqasheen oo aaliyateen dadka qaar ka saaran way ka saa dadka aqoon inay la yaabeen u maleena sayfaa okay marka ciidan takbiirteeda waxa la bilaabaa maalinta Carafo sida maanta camal ayaa la bilaabaa ilaa afar bir ay takbiirteeda ay soconaysaa okay Ciidul Fitri saasmiya waa ma Ciidul Fitri waxay bilaabataa takbiirta subaxda ciida qofka markuu waajibkiisa guto soonkiisa oo dhameysto markaas bir ciid waa markii la subaxdii bishi koomkiita ayay bilaabanaysaa Ciidul Fitriga ciid oo soonkan ka wada soonka kalimaad ciid oo ku xig Ciidul Fitri Allah sax Ciidul Fitri ay bilaabato subaxda ay bilaabato laakiin ciidan Ciidul Adha Ciidul Arafo waxay bilaabataa takbiirteeda maalinta Carafo oo ay tahay maalinta sagaalaadka ay bilaabataa ilaa afar bir ay soconaysaa ilaa afar beri oo ciid way soo ciid saddex bir waay laakiin maalinta Carafo markii lagu daro afar beri ay noqonaysaa ilaa afartaas beri takbiirtu way soconaysaa midaas waa ku faahfaahintina male mid labaad oo Ciidul Fitri ay kala duwanta Ciidul Arafa Ciidul Adha waxay tahay Ciidul Adha qofka muslimka ah subaxda ciid markuu dukanayo waxa la rabaa inuu sameeyo asigoo sooman inuu aado ayaa la rabaa ileen ciid kale Ciidul Fitri maxay tahay qofka oo soo afur oo fasariga oo farxsan yahay calaasha musawno afkiis wax fiican oo bilaabana wax soo cunaa markaas oo aadaameen ha tan waxay tahay dad jiifka soo kacay salaad soo aadi katid salaad intii la diyaariyo salaad waa ku bixi waa tagaysaa salaad sideeda ku tagaysaa adigoo afkaaga maran oo sooman ayaa tagaysaa marka imaad salaad aad soo dukatid markaas sidii soonka caadi ama afkaaga wax bilaabanaysaa bii timir markaas wixii kala cuni kartaa cunaysaa laazim marka ciidan sida waxa ka ciidan waa fahanteena umalena ciid kale waxay ka duwantaa waxay tahay ciidan marka salaad aadaysid adigoo sooman ayaa aadaysaa adoo salaad aad dukno afkaaga wax ma bilaabi kartid afkaaga wax ma cuni kartid waayo waxa sameynaysaa adigoo sooman ayaa salaad aadaysaa salaada soo dukanay marka salaada soo dukatid kadib ayaa afkaaga bilaabanaya waa fahanteena umalena waajib marka sunno waay marka sidaas afeen wixii sunno oo wanaag ku jiro mar walba fiican in la sameeyo waa sunnadii laga soo gaaray waxay tahay nabigeena kaleey salaatu wassalaam ayaa laga soo gaaray wixii nabiga ku keen qaado wixii ka reebo ka hartameeno anaga dad muslimiin aanan sunnada nabiga inaan raacno ciidan Carafo waxa la rabaa salaad marka aadaysid adigoo sooman in salaadaada waa fahmay umaleyna marka salaad marka aadaysid adigoo sooman aadaysa marka xaafadii imaadid kadib ay afka wax bilaawnaysa markaas ayaa waxa cunaysa ciid kale saas ma ahan Ciidul Fitri ciid oo soo furka saas ma soonfurka waxa soo cunaysa misaaka iska aadaysa soo dukanaysa imanaysa balse la kitaab soo dambeeya oo soo iska laakiin inta salaada ilaa salaada subax marka soo baxid ilaa salaad la gaara ilaa salaad soo bixis waa soomaysa intaas waa suno waxaan filaa inaad ka faa'iideysateen insha Allah waxaan rajeynaa badan inay iga faa'iideysteen ma sha Allah aad ayaan taasna ugu faraxsanahay waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtiin ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam wa antum bi khayr ciidan waa aniga Soomaaliya aanan ciidan waxaan u maleynaa inay tahay ciid yare u maleynaa ma aha laakiin ciid ugu weyn muslimiinta waa Ciidul Adha وعيد عرفه عيد صنفرك وعيد يري عيد الأضحى أيكو حكتها مرك عيد أول ومدان مرك أنا دتك معنا عيد هالسنة أيجو عيدين أيها سهور مريسة عيد الفطر عيد يريد أيها سهور مريسة حتى عيد أول حتى عيد الفطر أيها سهور مريسة مرك وحا أملنا عيد بس إنه
ciidaas ugu weyn ciid ugu weyn muslimiinta waa ciidul adha amba ciid carafo waa ciidan بريتو وعيد waxaan idin leeyahay dhamaan maanta waxaan rajeynaa aan kamid ahay inaan soomanahay soonkeena Allah naga aqbalo kuwii loogu dambi dhaafan Allah naga dhigo amal wanaagsan Allah na siiyo dambigeena iyo dambi waalidkeena dhamaanteena Allah noo dhaafo inta muslim ah oo sooman intaan soomaneyn dhamaantooda Allah u dambi dhaafo kuwii loo dambi dhaafan Allah naga dhigo waayo dambi dhaaf waa rabnaa waxaan waa adduunyo qof walba god ayuu galaa amalkiisa ayaa la galaa hadii dambi dhaaf adduunyo aadan ku soo sameeysan iyo tooba ku soo sameeysan ادو اخر wax ka hore malaha dambi dhaaf marwalba fi aan shay walba oo khayr ahna ina u degdegtid marwalba fi aan ilaahay wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum marka dambi dhaafka xaq rabbigiin oo idinka iimaana marwalba waxa fiican in loo degdego ma sha Allah marka waxa fiican marwalba in loo degdego khayrka insha Allah waxaan khayr ajr ayaa kaliya dambi dhaaf ayaa kaliya haduu loo wiliga hayreysani inta karaankaaga samee inta waalidkaaga muslimiinta ehelkaaga ugu dhawni waxa maxaa la tiga وشك waxaan waa khayr leh waxaan waa dambi dhaaf laga helaa adi af Soomaaliya waxaan iska dhahay laakiin waa wax adag sheyga dambi dhaaf laga helaa sheyga saan marka ilaahay aan waafaji dhamaanteen waxaan idin leeyahay meel baadootiin ciid wanaagsan ciid mubarak kullu aam wa antum bi khair insha Allah waxaan rajaynaa video xigo inaan ku kulmi doono insha Allah birit waa maalin carafo waa hilib cuno iyo anaga meeshii kalmarna assalamu alaykum